ururka MPS ayaa deeq kala duwan gaarsiiyay 21 qof oo danyaro ku dhaqan magaalada Hargeysa. ururka MPS Charity oo awr ay ku mideysan yihiin muwaadiniin reer Soomaaliland oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa waxa ay deeq raashin gaarsiiyeen 21 qoys oo ku nool gudaha caasimadda Hargeysa. deeqdan raashinka ah oo ay qurba joogta reer Soomaaliland ay ku dhaqan wadanka dibaddiisa u soo wakiisheen mas'uuliyiinta ururka ee gudaha dalka ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Maxamed Cabdi Labasuul iyo Guuleed Maxamed oo ah mas'uuliyiinta ururka ee gudaha dalka waxaana sheegeen in deeqdaasi gaarsiiyeen dadkii loogu talagalay. waxaan leeyahay raashinka aad soo dirteen aad nagu soo hagaajiseen ee 21 qoysa aad u soo bixiseen dadkiina jilicda san waxaan leeyahay halkaad ka soo saarteen ilaahay wax khayr leh haydi ku bedelo waa Ramadaan lagu jiraa wax xilligii kulli bishii sadaqada iyadoo Ramadaan lagu jiraa hadana waxa kale lagu jiraa waqti xanuun wadanka ka dhaceen adduunka caalamka ka dhaceen oo meel kasta wada ay kala xirantay oo dadku iska baahan yihiin meel walba xiran tahay ayay ku soo hagaagtay marka waxaan leeyahay halkii aad ka soo saarteen ilaahay khayr leh haydi ku bedelo intii dalka joogtay iyo intii dibadda joogta tii Afrika wada wadnaa afar walaalkeed magaantii hore aynu haynay waxay noqotay 21 qoys oo intaas u saarana raashinka sadaqada ay aad soo bixiseen ee Afrika ah waxaan leeyahay ilaahay ajir iyo xasanaad idinka siiyo waxaad u soo dirteen dadkii walaalihiin oo baahan oo waxaan ku wari sanadadii hore waxaad moodaa in waqti ku adag yahay dad badan oo shaqaysan jiray baa imika bilaa camal oo shaqaynin marka waxaan leeyahay ta dambe aad wadaana soo dadaal soo badiya dadkeenana ilaahay iyagana kuwii ku afre nabad qab iyo caafimaad qab ilaahay naga dhigo ilaahayna xanuunada inaga nabad geliyo